السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ayaa waxaa la sheegaa waxa u yimid nin baa u yimid wax weydiinaya. Markaa inankiisii oo la fadhiya ayaa ku yidhi aabe hal dirham sii. Cabdullaahi bin Cumar markaa waa siiyey. Inankiisa markaa wuxuu ugu jawaabay Cabdullaahi bin Cumar inankiisii taqabbal Allahu minka ya abati, Ilaahay ha ka aqbalo. Kadib wuxuu ugu jawaabay Cabdullaahi bin Cumar hadalkan. Wuxuu odhanayaa law calimtu haddii aan ogaan lahaa ana Allaha Ilaahay taqabbala minii inuu iga aqbalay sajdatan waaxida hal sajda oo keliya, hal sujuud oo keliya, aw sadaqata dirhamin waaxidin ama hal dirham yacni hal shilin oo aan sadaqadaysto oo aan Ilaahay dartii ula baxay, lam yakun ghaa'ibun axabba ilaya min almowti, ma jira buu leeyahay mid maqan oo iga jeclaan lahaa aniga geerida inaan dhinto. Cabdullaahi bin Cumar asxaabiga jaliilka aad garanaysaan waa axadu mukthiriina fi lxadiis, waa mid ka mid a asxaabta ugu faraha badan ee nabiga caleyhi salaatu wasalaam xadiiska ka warisay. Muxuu leeyahay? sababtuu leeyahay saas waa noocma. sababtuu u leeyahay waxa weeyaan in Allah subxaanahu watacaala yidhi inamaa yataqabbalu Allahu min almuttaqiin. fi suurati maa'ida Ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu inooga warramayaa laba inan oo nabiyullaahi aadam dhalay. labadaa inan in labaduba ay qurbaan Ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu dhowaanayaan ay sameeyeen, deetana Ilaahay subxaanahu watacaala mid ka mid a wuu ka aqbalay, midna aanu ka aqbalin, kii kalena aanu ka aqbalin. deetana kii aan laga aqbalin inuu yidhi qaala la aqtulannak, kii markaa laga aqbalay ugu jawaabay Ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramayo qaala inamaa yataqabbalu Allahu min almuttaqiin. sidaas awgeed in Allah falalkaaga aqbalay waxay ku tusaysaa inaad ku sifaysan tahay kuwa Allah ka cabsanaya ee Ilaahay ku tilmaamay inamaa yataqabbalu Allahu min almuttaqiin. ibnu jariir at-tabari ayaa wuxuu tafsiirka ku soo noqliyay athar kale oo kaa lamid ah. wuxuu sheegaa in caamir ibn cabdillaahi al-cambari waqtiyadiisii ugu dameeyey ay kusoo xaadirtay geeridii ay u timid inuu ooyey. deetana ay ku yidhahdeen dadkii maxaa kaa ooyeysiinaya? kadib wuxuu ku jawaabayaa waxaan maqlay inamaa yataqabbalu Allahu min almuttaqiin. markaasuu wuxuu odhanayaa waxaa laga yaabaa midkeen inuu Ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaado malaayiin acmaal ah oo laakiin ay ku laran tahay istus iyo kasab xaaraan ah oo yacni xoolo xaaraan ah, iyo inuu xoolihii agoonta iyo xoolihii fuqarada cunay. waxaa laga yaabaa buu leeyahay waxaa laga yaabaa inuu dadka afkiisa carabkiisa aanay dadka ka ammaan gelin oo dadka uu marna xanto marna maaga marna tacniyo. deetana uu maleeyo buu leeyahay inuu Ilaahay subxaanahu watacaala uu ula yimid camal Ilaahay subxaanahu watacaala u qalmaaya. wuxuu ilaawaya buu leeyahay markaa qofkaas inuu Ilaahay subxaanahu watacaala ana Allaha tayibun, inuu Ilaahay wanaagsan yahay oo laa yaqbalu ilaa tayiba, wax wanaagsanna uunu aqbalo Ilaahay subxaanahu watacaala. waxaa laga yaaba buu leeyahay ninka qofka ku cagsiya inuu la yimid acmaal yar ama sadaqad yar uu bixiyey, camal yar ama sadaqad yar inuu bixiyey, laakiin si camalkaas uu ku laran yahay buu leeyahay inuu yahay camal ama sadaqo daahir ah oo kasab xalaala ah, sidoo kale ay run weheliso Ilaahay subxaanahu watacaala uu uga run sheegayo, iyo inuu Ilaahay subxaanahu watacaala kaga cabsanayo. deetana markaa uu soo galo inamaa yataqabbalu Allahu min almuttaqiin. maxaynu markaa ka kororsaynaa xikmadaas ama murtida? maxaynu ka kororsaynaa? waxaan ka kororsaynaa waxyaabo badan baa laga baranaya, laakiin 3 baan kusoo koobaya. 1, in aymaankeena kusoo xaadirno markaynu acmaasha wanaagsan samaynayno inay u dhaxayso in Ilaahay subxaanahu watacaala inaga aqbalay iyo inaanu naga aqbalin. marka aynaanu isdhigan oo midkeen intuu soomo ama soom bato ama salaad bato inaanu fagadhis la odhan anigaa dadka ugu wanaagsan, anigaa dadka ugu cibaadad badan. 2, inay Ilaahay subxaanahu watacaala kaga cabsano camal kasta aynu samaynayno. 3, in aynu acmaasha aynu samaynayno iyo falalka aynu samaynayno inayn Ilaahay dartii u samayno subxaanahu watacaala. intaasaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.